Badhasaabka Awdal Oo Amaanka ayaa maanta la wareegay dhisme xarun cusub ah oo hadda kadib maamulka gobolka Awdal ku shaqeyn doono. Munaasabada xadhiga lagaga jaray xaruntan cusub ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah salaadiinta Somaliland, maamulka gobolka kan degmada iyo ururka haweenka qarankeena. Sarkaal ka socday hay'adda dalbaday oo dhismahan hirgelisay oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri xafiiska gobolka extension baa lagu sameeyay waxaanu xafiis cusub baa la dhisay afar xafiis cusub oo marka xafiiska gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeynta ku jiro marka dabeedna dhismihii uu dhamaystirmay waxa ku xigay in furniture la dhigay waxa hadda u harsan oo aan sugaynaa in kombiyuutarada iyo qalabkii sidaasi oo kale ayaa maayirka degmada Boorama mudane Saleebaan Xasan Xadiyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Boorama Maxamed Cabdi Xaashi Xamari oo halkaasi ka hadlay ay carabka ku dhufteen in Badhasaabka cusub uu la kowsaday mashaariic dhinacyo badan ah oo ay dawladda hoose hirgelisay isla markaana ay wada shaqeyn xoogan la yeelan doonaan. Sidoo kale Radwa Maxamed Cige oo ku hadlaysay magaca haweenka oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa tidhi aniga oo ku hadlaya afka haweenweynaha reer Awdal waxaan soo dhaweynaynaa oo ku leenahay gudoomiye ku soo dhawo gobolkan Awdal mar kale waxaan halka ka ballan qaadaynaa in aan la shaqeyn doono gudoomiyaha cusub dhinac kasta ha ahaato oo u horeeyo dhanka ammaanka. Badhasaabka cusub mudane Cabdi Axmed ayaa isaguna hadalka soo afmeeray wadajirkaan ilaashano wadajirka qarannimo aan ilaashano halkan waa halkii dhistay qaranka maanta aynu ku naanoonayna haysano xorriyadda iyo wanaagga aynu haysano horumarka iyo ma garanaysaa waxa aynu higsanayno waa halkii aasaaska iyo saldhigga u ahayd halayo dawaana ka muuqata waanaan mutaharaadyada had iyo jeer la sheegaa qiimo ma sameeyaan waxba bay burburiyaan cidda wax ka burburinaya ama waxyeelada ku keenaya waa inaga ma aha gobollada kale waa gobolkeena iyo magaaladeena waxa ka qurux badan waxa tabashadu ku jirto in miiska la isula yimaado. Abdalla Ali Yusuf, Home Cable TV, Boorama.